Salam alaikum. Hello, hello, hello. Welcome to Dadal Podcast and Integration TV. Hi, Mona. Hi, everyone. Hey, Opa, how are you? MashaAllah. How's Allah, everyone? We are here. we are. We are here. Another day, MashaAllah. MashaAllah, Sidii Ilaahay nabad. schedule-ka aan kusii sheegnay, maanta diyaar baan nahay. Maxaa haysaa Muno? How is your day? See tahay xaaladahaaga? Alhamdulillah, Ilaahay mahadi. There is nothing wrong, Alhamdulillah. Namar hadda caafimaad qabno. Yeah. Waxba inagama maqna. MashaAllah, MashaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. How's everyone? See leeyahay xaaladihiina ka warama? See tihiin? Okay. Join us aan leeyahay. MashaAllah, MashaAllah. Hey, people are joining. Wax yaraan sugaynaa couple of minutes si oo Let's aan get u people. ogaano dadkana soo join garaynaa insha Allah. Dhowr daqiiqadood baanu sugaynaa. Then markaaseeto conversationkeeni baan dive in ku samaynayna insha Allah. Hadda waxaan sugaynaa just few minutes oo aan sugayno dadkana soo join garaynaya insha Allah. Waa galabnimo Muno. Waxa weeyaan 3 galabnimo Saturday ah. So mothers maxay sameeyaan 3 galabnimo oo Saturday ah? Aniga ay weydiinin. Mothers ma hurdaan 3 o'clock oo Saturday ah. Mothers 3 o'clock waxaa la iscirsanayaa hawsha guriga, waxaa la iscirsanayaa adeegii, waxaa la iscirsanayaa caruurtii. Wallaahi ilaahay maaragta ha u gargaaro hooyooyinkeena. Hooyooyinka hawshooda maasha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Wa calaykum assalaam gabdho, waa idin salaameynaa. Wiilasheena, gabdhaheena, intana soo join garaysay kulligiin waa idin salaameynaa. Salaan sharaf leh ayaa idinku salaameynaa. How is y'all Saturday? Sabtidiina ka warama. Raxma idilay waaridi arkaa. Assalamu alaykum. Jamila JJ Hibaaq. Salaan sharaf leh ayaanu hawada idin soo marinaynaa. Thank you for joining us this Saturday afternoon. Idil said I'm cleaning. Idilay. Yeah, like I was saying. Morning. Mothers maxay sameeyaan Saturday at 3 p.m. Annaga Seattle time 3 p.m. inoo tahay. I know meelo badan aa la kala joogaa. Waqtiguu kala duwan yahay. Laakiin si guuda waxaa u weydiinaynay hooyooyinku 3 galabnimo sabti maxay qabtaan. Waa isla ognahay intaan hooyooyinka ah. Maasha Allah. Qaar adeegaya. Anigu haddaay mar dhowaan ka imid adeeg. Qaar maaragtay caruurtii la ciirsanayo. Qaar homework laga shaqaynayo. Marka waad iska garanaysiin. Yeah. Iska garo weeyaan. Yeah. Maasha Allah, Maasha Allah. Waxaan ku fakiray. Yeah. Go ahead. Waxaan ku fakarayay. I don't know. Inaan maqashiin karo. Waxaan dhegaysanayay. So intaan dadka soo galin wax yar ma maqashiin karaa baan isleeyahay dadka. Naeg Sweden at midnight. Oh my God. Thank We love you so Rahma. much, Rahma, Masha Allah, from Sweden. May maqlaysaa? Yeah. Did you hear sound around me? I see your son. Yeah. Ha. Wax yar ii kaadimun. What? Okay, what's on noqonaysaa? Okay, so I'll take over. Marka maanta waxaan ka sheekeynaynaa waxa weeyaan COVID. And let me see what I'm gonna do here. Yes, I took it over. Ilaa intay soo noqonayso. So maanta waxaan ka yar sheekeysanaynaa COVID-19. Sanad dhan buu ina haystay. Wax meel tegaya goor dhow ma aha. Aan ku soo celiyo saaxiibadday way soo noqotay. Marka maxaad su'aalo qabtaan? Maxaad waatan talaalkiina loo soo dejiyay imka dadku maaha mandatory laguma khasbayo. Sorry. May maqashiin? Waan ku maqalnaa. Soo dhaweey. Okay, Masha Allah, raalli noqda. Wax yar waan idinka yara. Okay, what did I miss? No, I just was encouraging them to put their questions because Manta Yes.
sida doonaysaan baa looga dhargayaa, and we will try to have some life examples for you too. Dad waxaanay kusoo dhaceen ama shikooyin dhaba oo dhacday, marka waxaad doonaysaan inaad ogaataan dee afkeena maasha allah. Su-aalaha qaar waxaan haynaa su-aalo already naloo soo diray oon sii hayno. Haddana waxaan rajaynaynaa in su-aalaha aad qabtiin aad noo soo dhigtaan. Commentiyada way furan yihiin, halkaas waan ku akhrinaynaa insha allah. Su-aashaad maqashay, su-aashaad adigu qabtid, su-aashu qof kaleeto isagoo ku weydiinaya aad maqashay, kulli nala soo wadaag insha allah. Conversationka maanta aan yeelanaynana waxa weeyaan un sidaas inaan wada falanqeyno su-aalihii aan isweydiinay, su-aalaha nala soo weydiiyey. Waxaa jira qolal WhatsApp ah oo nalagu soo weydiiyey su-aalo oon soo ururinay oo ayagana aan halkan ayagana ku falanqeyn doono. Idinkana kuwii aad nagu soo kordhinaysaan fadlan marnaba hays oranin su-aal qaldan baa jirta, ilaa su-aal walba muno Soomaal ahaan jawaab. su-aal walba gaaladu waxay yidhahdeen no stupid question, because haddaanad weydiin adunbaa kolleyba adaa ka fekeraya, 100 qof oo kalena uu kula fekeraya. su-aashaas way kusoo dhacday. Marka vaccination dad badan way qaateen, laakiin dad badan way ka baqayaan oo dib bay yar istaageen oo yidhaahdeen maxaa naga imanaya. And there is a lot of myths. waxbaan soo cararnaa, waa dhalmadeynaysaa, cudurkii waa lagu siinayaa, jib baa ku jira, waxaasoo dhan waa dee sheekadeenii Soomaaliyeed. su-aalada waan ka jawaabaynaa, wax walba tafsiir bay leeyihiin. just we have to informationka inaad qaadatid, cidna ma khasbayno. muhiimaddu ma aha inaan ku idhaano tallaalka qaado. muhiimadda iyadoo annaka waxa weeyaan inaan idiin soo baldhigno, aad afkiina kaga dharagtaan, hadhow haddaanad qaadan dee waa qaraar adigu aad gaadhay. Absolutely. Marka saas waay maasha allah. Sidee walaasheen muna tiri, su-aashu waxa weeyaan su-aal horta qaldani ma jirto. qofku markuu su-aal isweydiiyo waayo markuu horta wax ogaanayo. su-aasha markaad adigu isweydiiso haddaadan jawaab u haynin waxaad raadinaysaa sida jawaabta ku heli lahayd. marka annagu markii la wada hadlo wax badan baa kasoo dhex baxa. wada hadalkan iyo conversationkan wax badan baa kasoo dhex baxaya. su-aalo qof badan oo annaga nala weydiiyey iyo kuwa idinku aadna weydiin doontaan iyo kuwa kaleetaba meesha maanta waan isla wada falanqeyn doonaa. fadlan share gareeya the link, share gareeya live podcastigan hadda aan samaynayno si oy dadka kale asxaabta ah ayagana ay uga faa'iidaystaan wada hadalkan conversationka ku saabsan caabuqan corona ama COVID-19 iyo talaalkan cusub hadda hadallada badan ka taagan yihiin. in badan waa laga hadlay. last week waxaa sameynay annaga isbuucii lasoo dhaafay part 1 oo wada hadalkan ah. isbuucaana sidaan idinkaga ballan qaadnay waa qaybtii 2 oonu idiin soo gudbinayno oon rabno inaan ku wada falanqeyno sidaan horeba u niri. marka we are here, waana kan waa wada hadalkii meeshuu nooga soconayaa insha allah. maanta qaybta 2 waxaan rajaynaynaa inaan su-aalo badan oo dadka ay qabeen ay maanta halkaa kusoo afjarmi doonaan oo ay jawaabahooda ka dhergi doonaan dadka insha allah. Yes, I already see Fatima Chama. She posted a question. We will get there, Fatima. And JJ said, educated people are scared to take way ka baqayaan inay qaataan. Iyagoo dadkii barashadii iyo aqoontii leh, masha Allah way qaatay, but way ka baqayaan. So halkaana waan gaadhaynaa JJ. We're going to talk about it in details actually. Because labadeedoo Soomaali baan nahay, labadeeda community. marka taas way jirtaa waa dhab, laakiin again waxaan nahay oral community. afka waan is aaminaa, dadkeenu qof baa wax odhanaya waray carartay way socotay. taas way wallahi masha allah. So you start Obahay with the questions and we go from there and we can discuss it as we go. Okay. First question oo aanu ka hayno dadkiina soo weydiiyey maadaama aan niri waanu soo ururin doonaa su-aalo. waxa weeyaan talaalkan haddii ay qaataan rag iyo dumarba ilma dhalays la'aan ma dhalays miyaa lagu noqdaa? su-aashu saasay ahayd. ma dhalays baa lagu noqdaa ama dhalmada miyuu joojiyaa talaalkan haddaad qaadatid? So that's our first question. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لي عقدة من لساني وليفقه قولي. horta waxaan ka bilaabayaa wuxuu yahay vaccinkani because hadhow si aanan historyga ugu noqonin. vaccinkani markii la sameeyey ta ugu horeyso waxa weeyaan flu vaccinka ama dawada
duray bay yidhahdaan bisoomaali duray aw flu qof maaha fluga wuu kasii culus yahay durayga dee durayga waa caadi hargab fluga waa caabuq waa jiro ka culus hargabka okay haye fluga markaan qaadanaysid vaccinationka waxayna siiyaan a small dose of a dead the viruskii ay dileen oo jilciyeen ayaana la siiyaa kan haddaba viruskii laguma siinayo so vaccinekani waxa weeyaan vaccine waxay qaadeen DNA makingkiisii dhuuxiisii ayay sii sameeyeen oo sii jilciyeen dawooyinkii waa la tijaabiyey waxay kasoo shaqeynayeen horta H1 iyo N1 iyo swan buu ku bilaabay ilaa 4 sano iyo 5 sano waa laga soo shaqeynayay laakiin imka fursad waxay ku heleen inay dadkii ku tijaabiyaan 8 biloodina dhaafay ama 9 biloodina dhaafay oo cudurkan uga haystay waxay haysteen a perfect environment inay ku tijaabiyaan marka maaha wax 8 bilood lagu soo saaray dado yani waa inaan taa fahanaa 8 bilood laguma soo saarin 8 bilood chance waxay ka soo shaqeynayeen intaas oo dhan ayay heleen ay tijaabiyaan oo ay sii fahmaan marka inta aan ka hadalno dawadani maaha dead virus maaha cudurkii lagu mudayo waa DNA waa dhuuxiisii oo la farsameeyay oo lagu mudayo waa DNA and ubax baa DNA sii turjumi karta anigu inta odhan karo DNA soomaalida sida la moodayo ma aha DNA say u yaqaanaan inaba caadi ma aha xamar markaan tegey baa waxaan islahaa ereyo badan oo aad soo faa'iidid mise waxaa liigu yiri DNA waaba yaqaanaanba suuqa kan jooga waa garanaya DNA I was so shocked wallahi ayadoo ingiriisa baa oo xafiday horta marka DNA-ga waa dunta aan ka samaysannahay oo qaybna aan aabihii ka qaadanay qayb hooyadii ka qaadanay samayskeena weeyaan dhiiga marka tanna waa qayb ka mid ah leedo mRNA waliba DNA-ga sidiisa waa qayb ka mid ah waa protein ka mid ah sorry Ismaaciil Maxamed ayaa leenka nagula jira he's an expert in language masha Allah flu wuxuu ku macneeyay ifilo so anigu ifilo waan garanayaa umar waad garanaysaa ifilo marka flu wuxuu dhacam asaga as a word like Somali qaamus ahaan waa ifilo which is the right word waa mahadsantahay Ismaaciilo ana waa baranaya Allah Ismaaciil oo ku salaamay I know Ismaaciil actually I never heard the filo before aniga laftarkayga kelmad bay soo korodhay maanta so I'm going to use it from now on but marka lagugu mudo waa dawadii chip kuma jirto wax kale kuma jiraan waxaana la isticmaalay waa 8 bilood 8 bilood kuma filnaa in la sheego inay long term inay madhaleys dadkii ka dhigayso inay caruurta dumarka uur kale siday u effect garanayso we don't know it's not an information we hope it's going to be available sanu isticmaalayna imika dadka dhan loo vaccine garanayo but for now we don't know the long term we know the short term that's right so marka waxa waday explaining the DNA ama waxa oo talaal and then marka after that waxaan maleynayaa muno su-aasha ku xijin doontaa jawaabteeda waana already waa ka jawaabtaa u maleynayaa nacam inuusan ilmaha qofna ka hor istaagaynin laakiin dadka waxay leeyihiin maadaama oo short time lagu keenay talaalkan dee waa ognahay oo markii hadda anigaba aan researchiga suubinayay aan muno adigana waad aragtay laftigaaga already wuu jiray baaritaankii iyo hawshii way sii socotay in badan oo ah administrative ayaa laga jaraa layiri waxyaaba badan oo waqti qaadan jiray caadi ahaan oo jiitami jiray maadaama xanuunkan uu hadda degdeg ahaa loo baahnaa bandemigii uu sida aragtay uu u curyaamiyey meel walba waqti badan ayaana lasoo yaryareeyey oo aan awal jiitami jiray sidan anigu researchyada ku arkay laakiin also muno on the top of that waxaan maqlayay dadku waxay leeyihiin yes waqti yar baa lagu keenay ilmaha kale hadda marka laga hadlayo ilmuhu dad ka hor istaagi karaa maadaama oo inta dad la siiyey aanan la arkin jawaabtii then how can we say kaama hor istaagayo ilmo that was the follow-up question that came with that okay so let me tell you ma oran karno uu ka hor istaagaya ma oran karno wuu istaajinaya we cannot give that information
dawadan waa laga soo shaqeeyay dawo walboo la qaatay markay noqoto vaccination waxaa jira conspiracy theory hadday noqoto polio hadday noqoto mmr hadday noqoto dad baa jira kasoo horjeeda vaccineka sidiisaba oo yidhaahdaa cuduruu idin geysanayaa waxaanuu idin geysanayaa horta wixii ilaahay ku keenay ilaahay baa ku keenay laakiin waxa iyagu yaqaanaa 5 sannadood bay kasoo shaqaynayeen mukhtabaraad bay ku jireen macaamiil yani waxa laga shaqaynayay viruskan sida looga hortagaya marka virusku waa different version waxa weeyaan flu vaccine H1N1 swan iminkana wuxuu inoo noqday covid awalba coronavirus it's not new virus lakin this version of it is a new right even marka disinfecting kaaga warabahlana soo ibsanay cloroxka mal akhri xageeda dambe it's effective with coronavirus it's just we have a different version in a mid dadka fakinaysa in a deadly way weeyaan marka ma ogin laakiin dadkii qaatay dad badan oo uur leh way qaateen they chose to because halkan waxa lagu siinayaa xorriyad inaad adigu timaadid qaatid even when they laguma khasmi karo caruurtoodii way dhaleen caruurtoodii waa okay waanan ognahay immune systemka ترجم immune system what is immune system in Somali دفاع الشركة دفاع الشركة إنه المها يعني دفاع هويدا كنوليه هذا ومركي الناس نوتسنا دفاع هويدا هاي ستم بين المها وجود بنسا so far وحنا ويدا هذا هو خطر عظيم هقاعدن متشرو وحسايد إفكت ولا ريبورت جريء نمتشرو مركا وحا لو داي as the mom is comfortable it's up to her صح and also marka su'aashaas ma ka gudubnaa su'aal kale ma gudbaa I don't know okay second question waxa weeyaan oo su'aalaha waan soo kala hormariyay oo siday u kala culus yihiin marka that one waxay ahayd one of the main ones and then the second one oo ugu culus ahayd waxa weeyaan dadkan caafimaadka iyo dadka tallaalada soo saaray waxay doonayaan inay annaga tallaalka nagu mudaan ayagana ay biyo isku mudaan oo ay yiraahdaan aniguba waan qaatay arka laakiin aysan tallaalka qaadanin marka saas darteed waxay rabaan inay annagana dhameeyaan horta astaghfirullah horta يعني qofku markuu fikradda u tago you think okay what are you thinking you know muxuu soo maray horta annaka haddaan Soomaalinahay ma annaka mise dad kale midba dadka kale iga daa anigu waxaan ka hadlayaa Soomaali ahaan I don't care haddaad Kenya ka timi I don't care haddaad Carab ka timi I don't care haddaad Soomaaliya ka timi waxaan nahay dad dhaawac weyn soo gaadhay sax marka waan qoyanahay trauma is real for our community marka waxyaabahay ka baqayaan waa mistrust you know marka lagu barayo psychology-ga waxa lagu oranayaa waxa jira stage the trust and mistrust annagu haddaba qof shisheeye inoomu iman qof caddaan inoomu iman qof gaala inoomu iman qof xataa dowlad kale nagu soo duushay you know you have closure when you say cadow baa iyimi marka annaka hadduu qof dilayo annakaas dilna hadduu qof khiyaamaynayo annakaas khiyaamayna hadduu qof isticmaalayo and we use people so people are traumatized over and over and over even kuwa researchada sameynaya xataa markaad leedahay waan kuu imanayaa meeshaadaan kugu imanayaa waan kuu keenaya vaccineka anaa kuu keenaya waxdanaysa muxuu ka faa'iidaya igu keenaya su'aalaas weydiinaysaa gaalkiiba ii keeni waaye ka Soomaaliga muxuu isla soo really marka waxa hadlaya waa wixii aan soo marnay waa aamin daradii nacam aamin daradii marka everything happen we question what's behind it because you're protecting yourself adigu naftaada iyo reerkaagu bad protect garan kartaa so you have to ask these questions which is perfect keep asking questions yes ma garan saasan ku ogaanaynaa yes but wax biyo lagu mudayo horta wadankan ma meel kale misaalkan dadku ayagaa soo baqaya waayo qofkii waad barakicinaysaa waad ka daba tegaysaa waad ashkateynaysaa maxkamad baad qaadaysaa laysankaygii de walaalo ninaan ilbad ka mudayo uma dayacayo ila waa lacagtaydi iyo shaqadaydi iyo waxaan u kalahay maalin walba marka halkaa ka fakir why would I
jeopardize my check and my work and my livelihood for irbad normal selina aan qofka mudo placebo effect baa la yidhaahdaa you know right I'm just saying way jirtaa waa la tijaabiyey wax halkan maraykanka laga ogol yahay maaha and I think Europe is the same way carabtana ma dha waa saasoo kale because dowladdaaba gacanta ku haysa carabta yani halka anigu I'm taking like Kuwait for example dowladdaa soo qaaday vaccinkii qof kale klinikyada waxay dowladdu siisun bay qaybinayaan right so wixii dadku qaadanayeen waa isku wada mid it's coming from the same source ilaahay baa la aaminaa ilaahay la tala saarto wixii ku qoran adigoo aana qaadan hadday taadii tahay way imanaysaa hadduu ilaahay caafimaad kugu qoran oo kugu badbaadiyena way ku imanaysaa maasha allah mahadsanid muna waa run horta aamin daradu waa wax jira dadkuna aamin daradu iskagama dhalato aamin darada wax unbaa keena meel unbay dadku wax ka tabanayaan markay aamin daradaas sheeganayaan marka in the health system in this country also waa ognahay there is a lot of mistrust when it comes to mainstream health in this country so waa ognahay wadankan haddaan hadda dib u raacno annaga ilaa wadankan aan ku noolnahay maraykanka aamin darada ka jirta caafimaadka mainstream health marka la dhaho caafimaad guud ahaan dadka maaragtay sharciyada u dejiya hadday noqoto dadka maaragtay waxyaaba badan kasoo shaqeeya caafimaadka lama aamino waayo waxaa lagala kulmay dhibaatooyin badan oo soo jireen ah oo taariikhda wadankan lagu ogyahay marka anigu lama yaabo markaan arko dadku inay aaminkooda horey ka aaminaynin wixii laakiin markii su-aashii la isweydiiyo oo jawaabihii dadka ay helaan oo ay og yihiin in maaragtay akhbaar ku filan ay dadkii haystaan then go-aankii si fudud bay u gaari karaan laakiin ina aamin darada ay jirto waa wax jira soomaali kaliya kuma koobno dadkoo dhan now you're going to 2 to 3 layers because annagoo ka nimid trauma halkana waxaan kusoo dhex dhacnay the systemic racism weligeen waan maqlaynay dad leeyahay dawadii layma siinin layma sheegin dhakhtarkaygii wixii lay siinay layma sheegin dhakhtarkaygu yani waxaan ilmahaygu u baahan yahay ma qabanayo and always you know waxaad odhanaysaa tii ka xumeed oo soo dhaaftay why would you pay attention marka annagu double one iyo saddex one baan ku jirnay maya wallahi aad iyo aad waa run 100% absolutely all right thank you so much Dr. Muno next question waxa weeyaan waxaa la yiri talaalkan qofkii xataa haddaan go'aansano inaan qaadano keliya waa dad waayeel ah dadkii weydiinaya waayeelka unbaa la siinayaa ma waxay doonayaan inay annagana dhameeyaan maadaama aan caafimaad iyo xaquuq ka qaadano ma waxay isleeyihiin dadkan wax unbay idinka qaataan waxbana idinkuma soo kordhiyaane iyaga baabi'iya marka ugu horeysa miyay isleeyihiin that's again another myth subhanallah and horta markii horeba dee soomaalitaasi maaha markuu soo baxayba markuu ka bilaabmay covid-19 started the coronavirus started in Wuhan China right marka dadkii waaweynaayin baa dhacayay markii ugu horeysay lama fahamsaneen wuxuu yahay de waxa la yidhi waa yeelku dilaya markii dambe the conspiracy theory took over and then waxa la yidhi waxa loogu talagalay markii horeba China dadkii waaweynaa ku bateeno inay dadka waaweyn ka takhalusaan right laakiin waxaan ogaanay imika nacam cimrigoodiiba ilaahay u dheereeyaa la yidhi dadkaas miya ha laga takhaluso saasa subhanallah but you know what waxa jira imika after 8 months of it markii hore maana fahamsaneen waa isku dhex daadsaneen waan qaylinaynin dadku waa isku dhex yaaceen maxaa saa loo kala qaadaya siduu bahalkan u yimi waxa lagu sameeyey lab ma dad baa nagu soo daayay you know we didn't understand anything laakiin imika waxa la ogaaday inuu cid walba ku dhici karo that's right يعني عد والبا وكل كرا and I can give examples and examples that أنا شخصي أهان and من أهان one to one أنا أقان the trauma is real yes absolutely مركا عيالك وكل ولي بعيالك مركا روح عيالك كمرة أو واحد يمكن ليهين أو percentage كعيالك ما بدنا مركا عيالك والجو علنا يسكول لده we don't know that we don't know that they saying that but we don't know that that's absolutely caruurta wuxuu ku sameeyaa waxaa la ogaaday inuu do multi organ inflammation
And it caused some kids to be intubated like the old people. Yeah. So ma odhan karaan group more than the other group. Waxay odhan karaan we don't know yet. Like wali as a society, we're not comfortable to say we don't know yet. Protect yourself. Protect your kid. Wuxuu ilaahay caqli buu ina siiyey. صح. marka ilaahay wuxuu yidhi wixii aad qaban kartid adigu naftaada qaba inta kale aniga igu hadlay marka idinku gacmihiina meedha often caruurtiina bara do not take that mask outside if you don't have to go outside guriga iska joog sanitize more often adigu taadi zinc caruurtaada sii vitamin D sii adigu qaado you have to be advocate inaad adigu naftaada ka shaqaysid marka adigu taada aad ka shaqaysid caruurtaada secure-garaysid wixii aad baratay ee adiga healthy kaa dhigay ee caruurtaadii badbaadiyay dadka kalena bar absolutely marka at the end of the day waxa weeyaan waxay isugu soo biyo shubanaysaa dadaal adigu haddaad dadaasho ilaahayna wuu kula jiraa annaga waxaa nala faray mahmaaha ahayd muxuu ahaa tie your camel and trust in God right adigu laguma oranin hashaada intaad xariga ka fudhid oo dibadda saa u sii daysid waxaad tidhaahdaa ilaahay baa ii xanaanaynayo seexo laguma oran waxa lagu yiri lugta ka xiro adigu xir ha kuu joogto halkaas si aad u ogaato inay meesha ka dhaqaaqin adigu dadaalkiibaad keentay laakiin ilaahay wuxuu qoray adigu ma celin kartid taas ilaahay hawshiisa u taalo weeyaan marka annaga dadaalkiina la faray weeye markaan anagu talaalka nafsadeenna aan istalaalnay aniga waan qaatay muna way qaadatay macnaha waxa weeyaan waxaan rabaa inaan aniga nafteyda horta kow aan dadaalkii kow ka bilaabo markan aniga isxanaaneeyo familkaygii iyo dadka agaarkayga joogana aan ayagana iraahdo waan xanaanaynayaa waayo haddaan aniga tayda sameeyo qaybtayda ka soo baxo dee qof walba qaybtiisa markuu kasoo baxo kulligeen waxaanu joogaynaa meel aan caafimaadkeena ka wada shaqaynay oon wada dadaalnay ilaahayna inta kaleeto wuunoo dhammaystiraya marka maasha allah let me add one more thing to that laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت يعني كلام الله هو حق إلهي وحيدي وحانت قادي كرين مر والبا كما صاريو marka mar walba imtixaan waan ku jirnay laakiin haddii imtixaanka ilaahay inagu soo beegay annaguna aan ka sii darno oo annagii aanan inteeni qaban marka we didn't pass the test right intaada samee ilaahay tala saarta ilaahay wina badbaadinaya xuma laakiin you have to do your part wash your hands often biyo kulul iyo saabuun wax dhaama ma jiraan waad gaadhi weyday your sanitizer maaskaaga xidho caruurtaada bar maaska inkootan laleeyahay iskuuladii waa lagu noqonaya vitaminadaad immune systemkaaga ama difaacaaga soo kici zinc siyaaral haddaad degan tahay ama meel aanay qoraxi ka jirin ama dadka la yidhahdo qoraxdaba ma arkaan vitamin D maalin walba qaado because jirkaaga manaacadiisa iyo difaaciisa maba kacayo haddaanad vitamin D haysanin multivitamin dadkeena bariis iyo baaston baan cunnaa khudradda haddaan idhaahno khudrad kusoo darno basal iyo tamaandha lagu soo jarjar iyo iceberg lettuce oo ah qashin almost because wax uu nuu kordhiyay male waa biyo maba aha xataa we don't even consider inuu iceberg lettuceka uu yahay khudrad waxaan malaynayaa one whole episode ayaa waxaa usoo diyaarinaynaa dadka insha allah muno cagaarka iyo cunooyinka fiican iyo waxaas maar dhan aan ka hadli doonaa it's gonna be a whole episode insha allah that's your notch of the wood man insha allah we will talk about that maasha allah mahadsanid muno su-aasha kale waxa weeyaan haddaad talaalkan qaadato neerfayaasha jirkaaga wuxuu dhimayaa soo ma iskontarooli doontid murqahaaga iyo neerfahaaga qofku xataa si fiican uma fariisanayo marunbaa I don't know what to say anigu maan arag qof aanay neerfaha because dadku waa different horta markii hore waxa lahaa waad qofacaysaa xumad baa ku qabanaysaa neeftaa kugu dhegaysa imka waxaan ogaanay inuu qof walba ilaahay si gaar u sameeyey she cannot take the vaccine according to the doctors. So, and أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. So, نرفها horta Soomaalidu waxay neerfaha u taqaano anigu myself I'm confused about it. So can you explain that more? Okay, before I explain I want to know what Muno ka wado
aniga Soomaalida waxay neerfaha u taqaan adi what do you think inay u taqaano neerfaha Soomaalida oo I aan don't maqashin know. Mar walba waxay nerfaha, but I nerve. How do you feel? You know, like nerve. Like when you have nerve pain, or firing pain. Marka the book baan ka hadlaya book wise. Or firing. يعني waa wax ku gubinaysayo kale. Wax xanuun. Laakiin nerfaha marka leeyna are they meaning tremor? Because I saw you doing this. I don't know. Okay, waxay ka wadaan xididada jirka iyo nacam sida maaragtay all the connections inta wax isku xidha ayay neerfaha dhahaan inta badan oo aan arkay So it's the neerfayaasha xanuunaya nervous system there so they feel their nervous system xanuunaya that's what they say okay marka waxa laga hadlayaa I think muscles of course marka kuwaasoo dhan bay howlgab ka dhigaysaa talaalka markaad qaadatid any talaalaad qaadatid difaacaagu soo mar haddaad qandhadi dareentid mar haddaad dareentid maragtay waxaad dareemaysaa wax qabowna ahayn kulaynaay marna waa dhaxmoonaysa marna waa kululaanaysa waxa weeyaan difaacaagii baa shaqaynaya jirkaagu wuxuu sameynayaa wixii loogu talagalay 2 casho 3 casho at the most and then you're done you're okay right laakiin and that's one of the side effects let's go back to Faduma Jama aan isku xidhno marka la qaato vaccinekan aad qaadatid wasida flu vaccineka wasida any vaccine you take حتى carruurta marka siinaysid waxa laga oranaya hadhow guriga hadday qandha qabato ilmaha yari ooyo Tylenol C right we say that so because waxaan kuu siinayna dawadanba inaan jirkaagii ka hadashino dawadii uu cudurrada kale ka dhex barto oo markuu arko viruskaasoo jirkiisa soo galay inuu jirkaagii kaco oo alarm bixiyo yidhaahdo oh waana la soo galay dagaalka marka dagaal ku jirtid de jirkaagu wuu dareemaya cuucuucii waa dareemaysa nerfa jirkan ku dhaqdhaqaaqaya waa dareemaysa chills I don't know what chills in Somali and sida jirraco kaleeto qabow aana qabowna ahayn iyo rota fever waad lahaanaysaa low grade sometimes you will have a fever because jirkaaga difaaciisa strong marka uu ka hortagay that's a good thing yes Tylenolkaaga qaado 2-3 days you will be okay masha Allah the other thing ay ku daraan dad badan oo la hadlo most of my patient actually waxay ku dhahaan flu vaccine kama qaadano because the minute aan qaato ayaa cudurka dhaca oo nacam xanuunkii fluugii aba igu dhaco waaban jiifsada ma qaadanayo I have heard that before let me taano ka daba tegaya viruska waxa la yiraahdaa 24 hours kuma soo baxayo virusku jirku galaa xubnuhu galaa what is the tissue is like what do you call tissue aniga maanta anaga Soomaali ka baranay what is tissue maqaar waxa ka hadlaysaa maqaarka mise waxa ka hadlaysaa jirka the cell yeah the tissue and Jamila JJ waxa noo soo qortay qarqaryo Soomaali waxa haday ka hadalday maya and the cell ma unuga ka hadlaysaa aywa jirku galay unugu galaya wuu qariya jirku la mid noqda jirkaagu ma dareemayo then it starts replicate jirkaagi ma dareemayo because wuu qarinaya waa very smart right doomanaya ha marka it takes 72 hours and more for it sometimes a week it depends for jirka inuu dhaho waxba igu jira ina dareentid marka virus maanta lagu muday berri kuguma soo baxayo taa ha u joogin it's not going to happen okay and before this vaccine it's not going to happen because virus kiiba kuguma mudayno masha Allah Muna thank you intaan u gelin su'aasha kale abaayo hibaaq teeda haddaad eegi karto hal mar Muna okay so waxay tiri walaalo hibaaq waxay tiri my sister is fighting cancer stage 3 but she cannot take the vaccine which is true she cannot take even the flu vaccine at that stage according to the doctors in Germany yes lakin waxaad samayn kartaa naturally boost her immune system what does that mean in Somali waxa weeyaan waxaad soo kobcinaysaa difaaca maxaad ku waxaad samaynaysaa you're gonna give her antioxidant you know gingerka iyo turmerica isku kari isku shiid honey ku dar let her drink a shot of it every day inshallah vitamin D geeda ilaahay caafimaadka ha ugu siyaadiyo inshallah ilaahay intaa faa'iidaha uga dhigo vitamin D zinc every day
bahalka maxaa garlic waa dawo yes aad iyo marka aad maaha dawo daweynaysa laakiin difaaceeday soo kicinaysa absolutely masha allah jirkeeda xataa wuu iska difaaci karaya kansarku ilaahay iyadana ha ka qaado muslimiintana ilaahay ha ka wada badbaadiya amiin ya rab what it does to you you know and waxay ka baqayaan because difaaci jirka aad u liita waxay ka baqayaan inay dawadaa ku siiyaan ay more trouble u keento qofka because waxa imika marka immune systemkaagu loo yahay oo lagu siiyo flu or they give you the coronavirus even though it's not the virus it's a DNA of a virus mRNA or product of the DNA marka jirkaagu can respond you can have any kind because immunekaagu waa system waxa la yidhahdaa opportunistic and infections waxa weeyaan infectionno ka qaadanaya you know they take advantage adaa tarjumi doona waxay they take advantage of the low system and they show up like yeast infection like shingles intaasaa loo diiday ha nacam waxay ka faa'iidaysanayaan immuunka oo dhacsan ayay ka faa'iidaysanayaan markuu jirkeenu hadda galo soo ma ahan inay xanuun ama wax kasta oo jirka soo forsaara haddii uu difaaca jirkeena uu meel fiican yahay waxba isbedel kuma samayn karo waayo waxaa ka hortegaya waa sida adoo bir isku wareejiyey qof hadduu dhagax kugu soo tuuro birtii ku dhacaa kuma soo gudbayo laakiin haddii maro oo kale aan anigu isku wareejiyo dhagax haddii lagu soo tuuro maradii wuu kasoo baxaya anigu igu dhacayaa dhagaxi waa for sure so difaaca markaan dhisno jirkeena waxay keenaysaa in jirkii wixii uu iska difaaco dhib ahaa oo soo food saara laakiin markii immune systemkeena uu yahay low uu hooseeyo oo jirkeenu difaaciisa uu hooseeyo jirkii uma babacdhigi karo waxyaabaha xanuunada caabuqyada dhibaatooyinka soo food saaraya marka talaalkan kolleyba dee sida talaaladii kale oo hore aan u aragnayba waxa weeyaan muhiimadda in jirkii DNA-gii uu baro uu u sheego yidhaahdo oo haddaa waxaan oo kale aragtid rakagasgaree xasuuso si ay wax badan kaaga bedelin right so ubaxeen kaa dhex galo raxmad yaryana carab bay kusoo qortay so I will answer her maasha allah haye aniga carabiga maasha allah iyo insha allah aan ka oranaya ogtahay soo ma markay sheekada carabi timaado waxay tiri يا دكتورة منى لو الشخص عنده حساسية ما أثر الفاكسين عليه وهو مصاب فيروس شكرا يا دكتورة وهو مصاب فيروس ما فهمتها وهي رحمة يعني إذا قفكي مصاب بالفيروس الكورونا marka waxay tiri qofku hadduu xasaasiyad leeyahay allergy vaccine-ku muxuu ku sameynaya marka allergy-gu depend what kind of allergy xasaasiyaddu way badan tahay ma xasaasiyo cunto ah ma xasaasiyo weatherka ah ma beedka what exactly you're allergic to ma cuntooyina yes that make a difference imka hadday cunto tahay dee cunto kuma jirto vaccine-ka but if you allergic to flu vaccine if you allergic to egg yeah, you discuss it with your doctor because you know dad badan allergy way qaateen and nothing happened laakiin qofka og xasaasiyadda aad qabto detailkeeda laakiin hadday tahay pollen hadday tahay hawada seasonal waxa weeyaan you just take your allergy medication and afterward ka hor markaad qaadanaysid vaccineka ha qaadanin Tylenol ha qaadanin ibuprofen wax dawaa qaadanin waa jirkaaga difaaciisii baad seexinaysaa moogta marka ma dareemayo wixii ma baranayo laakiin kadib markuu jucjuuc bilaabmo waad qaadan karta waa markuu bilaabmo haddaana jucjuuci anigu labadiiba waan qaatay alxamdulilah ilaahay tii hore anoo yaaban oo la talow oo halkii soomaalida biyaa laygu and I'm not making fun wallahi waan yaabay because dadkii ila shaqeynaya oo dhan waxay lahaayeen oo gacmihii baa xanuunaya gacantii ma qaadi karayo way casaatay anu qof madow baan ahay imay casaanin adigu malaha way casaatay dee jirkeena maybe waan laga arkaynin no may casaanin imay laakiin muno aniga gacanta 2 maalmood bay xanuunaysay I felt the chills waan dareemay lalabo nauseated aan noqday xabadii koowaad tii labaad weli baan qaadan bishan dhammaadkeeda u ballansana insha allah laakiin talaal koowaad markaan qaatay gacanta 2 maalmood way xanuunaysay lalabo habeenkii waan dareemay sida xumad yar 2 maalmood only 2 days after 2 days caadi aan ahaa 2-3 days hadday ugu badato markay labaad kugu noqoto ka saddexaad dawadaada iska qaado
خلاص jirkaaga wuu bartay wuu ka dhex bartay wuu sawirtay dhaac jirkeena waa very smart laakiin markaad sii tegaysid ha ka sii baqin oo ha odhanin alla armaan bukooda aan ka hortago dad qaatay vacciinka oo markii dambena covidkii kusoo baxay oo yidhi dawadii vacciinkii baa i siiyey taasi dhab maaha markii horeba uu kugu jiray waanu soo bixinun 14 casho qaataas uu soo shaac baxo coronavirus marka any time between these 14 casho soo bixi karaa vacciinka kuma siinin uu ku jira jirkaaga waanu soo bixinun markaas oo la siiyey un coincident ayaa waxaa isla kulmay isagoo already viruska jirkiisa uu kusoo jiray kusoo bixin iyo talaalkii oo la siiyey taasaa marka waxay u ekaysiisay baa muno nacamsaa u fahmay in qofkii uu talaalkii siiyey xanuunkii way u fahmeen maasha allah waa mahadsan tahay waxaan xasuusinayaa dadkana daawanaya idinkoo aad u mahadsan oo sida nagala soo qayb qaadateen fadlan sheergareeya linkiga si dadka kaleeto oo aanan hadda ayagan ogeyn inaan hadda live joogno si ay uga faa'iidaystaan waayo waxa maanta ka hadlayno waxa weeyaan caabuqa covid-19 ama covid-19 coronavirus iyo talaalka cusub iyo wixii aan ka aaminsannahay ama dad yoo badan su-aaley iska weydiiyeen marka nagala soo qaybgala kasoo qaybgala idinka laftigiina su-aalihiina soo qora na soo weydiiya saxaabtiina la sheergareeya linkiga qaada ku sheergareeya facebookiina social mediahiina waa mahadsantihiin waan sii wadaynaa muna haye break ma u baahan tahay you have your tea you have your coffee I have my coffee maasha allah waxaa u baahannahay in oo break inaa xoogaa wax yar maqashiino dadka haddaay waxaan lahaa wax yar aa maqashiyo ma xasuutaa haddana gadaal baan ugaga yaro noqday anyway su-aal kaleetaan kuusoo tuurayaa hadhowan gadaal baan ka dhegeysan doonaa su-aasha kale oo ku xigta waxa weeyaan talaalka waxa weeyaan dad badan oo dadka waaweyn iyo dadka caafimaadka u shaqeeya ayaa la yidhi way qaadan karaan yes waa maqalnay laakiin su-aasha waxay ka timid gabar oo business leh goormo ayaa laga yaabaa in dadka dukaamada leh maadaama dad badan ay noo soo galayaan annagana naloo ogolaado inaan talaalki qaadan karno so qof waxa weeye raba inuu talaalki qaato laakiin aanan garanaynin xilliga loo ogolaan doono oo iyadoo kale dadka ah horta talaalkani I don't know about anywhere else anigu maraykankuun baan ka hadli karaa right all I can say it's about America. So let me tell you about America. What we do is ka hortagii cudurkan dib u dhacay markii hore. Sax. Imika waxaa la doonaya lasoo daba qabto. Waa la daba cararaya maaragti. Because we were late. Waa la daba socda because January buu ninkan cusub qabsaday ofiska. Marka wixii lama order gareen enough vaccine for everybody. صح. marka phases baa lagu socdaa iminka laakiin hadda waa la order gareeyay waliba newska cusub ina Johnson and Johnson company saddexaad asaguna uu ka qayb noqonayo wali mu noqon FDA gu uu apply gareeyay waraaqiisa uu xareystay waa la review gareynaya marka waxa laga yaabaa inuu mid saddexaad oo waliba dose kaliya one injection so intuu nacam laba ka noqon lahaa hal kaliya labadiiba intii looga baahnaa lagu helayo inuu kaasina uu soo socda laakiin imka waxa hadda Seattle I don't know about the other state waxaan maraynaa 65 and older you know you're the front line waxa weeyaan dadka dhakhtarada ka shaqeeya dadka firefighterka booliiska dadka صح imka hadda waxa loo doodayaa macallimiinta front line workerka kuwa ka shaqeeya and grocery shops you know wherever you go to I think if she have a shop she will be with that phase the frontal نعم waxay noqon doontaa nacam dadka frontal worker yes okay markii hore xooga waxa la saaray health worker because you know dadkii baa la shaqeynaa yes isbitaalada yes marka dadkii waaweynaa iyo nursing home-kina waa halkii lagu go'ay waa meesha lagu qabay bay noqotay United States to the point that ninkii hore ina haystay dadka ka dhinta kugu direen xisaabta dadka ku dhintay Mareykan moogtay subhanallah ka waran because it was devastating numberadeenna waxay noqon lahaayeen marka intaasu ilaalinayay laakiin imka waa lagu daraa ayagaa laga bilaabay dadka iyo dadka waaweyn marka imka waxaan taaganahay 65 and older
We don't know anything. We're hoping by end of maybe April yeah that everybody, it will be open and we have more. But for now, we have very limited supply. ha xataa dadkii waaweynaa oo hadda qaarka rabaan inay qaataan laftigooda ayaa hadda waxay sugayaan waqti oo ayan horey ka heli karin qaar ka midoo badan Yes, and taasina waa laba shay bay ku xidhantay horta anigu meel kale kama hadlayo. Maraykan baan ka hadlaya. Walaalay Maraykan waxaan ka hadalnaa equity, health equity. Yes. And when we talk about health equity, we're talking about the black and brown people. And health equity waxa weeyaan caafimaad loo siman yahay in la helo. Nacam xuquuq caafimaad oo loo siman yahay in la wada helo. Madowga dadka ah ama cadaan ahow ama Asian ahow ama Afrikaan ahow ama cid artid ahow in xuquuqda qof walba uu u leeyahay xaq inuu helo caafimaad loo siman yahay. Marka, we talk about equity, but really, is these vaccinations available in our communities? No. If you notice, where is the access at? Where is their line at? Do we have access to it? That can mageli karan. Because annaku mar walba yani Soomaalidu kale, waxaan nahay middle, right? Black and brown kaasan ku jirnaa. Community are underserved communities. Yes. So we do not have a direct access to these things. We have to go through their neighborhoods, whatever ayaga loo set up gareeyay, then wixii ka hadhaan noo soo noqonay. So there is no equity. We have no access. The access is not available to the people who need it the most, the vulnerable. And with ogtahay inuu madowga yani numbero yani disproportionately killed the black and si weyn bay u saameynaysaa dadkeenan maaragtay ama soo galooti ahow ama dadka madowga ah oo weligood halkan joogay ahow madow haddaad tahay ama dadka ay dhahaan people of color hadday dhahaanba wayna saamaysaa sida ugu dhibka badanay noo saamaysaa annaga aad noo saamaysaa waa la ogyahay taas ma aha wax qarsoon waana wax soo jireen ah oo ma aha wax maanta cusub 100%. It's just like لكن أنكو هذا we always hope once did see نموت like and you see that the people who have access all the, even though إمي كذا تكون ويجادي everybody have an access problem because it's King County, it's Kaiser for their patient. It's so how can we make it equally accessed by people? Yes. Imagine marka caruurta loo furo wali caruur looma furin. Can you imagine that some communities kids will have access and some will not? Thank God that the vaccine they start from 16 and up and the other from 18 and up. Yes. But it's the tragedy, the disparities are real. Wallahi, and it's not wax cusub waa wax lagu yaqaano wadankan oo history iyo taariikh loo leeyahay in there's always ay jirto caqabado oo dadka qaarkood aan u ogolaanaynin oo caqabadahaas aysan ahayn caqabado oo maaragtay meel fog ka imaaday caqabado oo dadka ka dhex imaaday caqabado systemka ka dhex imaaday caqabado midabta koor ah waa la ogyahay marka waa wax cusub maaha wayna soconaysaa laakiin mar walbo annaga dadka maaragtay dad badan oo hadda waxaa jira mar walba arrintaas sayto nal ku daara toosh ku ifiya oo yidhaahda xaq maaha fair maaha dad badan baa arrintaa ka hadla marka insha allah waxaan rajaynaynaa in sida aan hadda uga hadlayno dad badanna uga hadlayaan horta bal aan caadaysano joogtaysano oo caadi ka dhigano inaan horta ka hadli karno su-aalo isweydiin karno macluumaadkan doonayna aan helno akhbaartii aan ka dharagsanaano kabacdi ayaa waxaa u gelaynaa see lagu helaa xagee ka helaynaa yaa u ah xaq u leh iyo su-aalaha arrimahaasayto laakiin marka hore hadda annaga waxaan rabnaa inaan dadkii ka haqabtirno si ay ku helaan su-aalaha ayan aqoonin jawaabtooda siday jawaabtooda ku heli lahaayeen oo ay afkoodii ku heli lahaayeen iyo luqaday fahmayaan iyo daday garanayaanba ka heli lahaayeen so true yes masha allah very true when can we we get vaccine miya qofka haddana weydiiya hadda waxaa ka hadlayna waay taas it depend on the age your group ku jirtid laakiin imika everybody is 65 and older ba hadda siyaara laga wadaa but I don't know sax waxaan u malaynayaa muno midda su-aasha kale ku xigto waxa weeyaan jib oo nalagu controlayo waxaan samaynayno miyaa ku jira talaalkan markii talaalka lagugu diro ma wuxuu wataa jib
lagu ogaanayo waxaan qabanayno meeshaan joogno halkan dadkan la hadlayno nacam annaga in oo monitoring system camal arrin oo kulligeen na lagu ogaanayo waxaan qabanayno iyo meeshaan marayno iyo ciddaan la dhaqmayno iyo ciddaan wax ku darsanayno iyo dadkaan la hadlayno ama halkan ha ahaato ama waddankii ha ahaato tallaalkani ma wuxuu wataa jib annaga na lagu ogaanayo tallaabo kasta oon qaadno horta waxa ka horeysa maxaa lagu ogaanaya jibkuna waa lacag bahalkana free baa lagugu siinaya so waxa ka horeysa horta maxaa lagu ilaalinaya haddii doonayaan ku ilaaliyaan we have Google hey Google where is ubax hey Google waa ka eg call ubax arawelo waa ka hore u isoo saara right so horta qof dadka waxani waa wax cudur lagaga hortegayo cidina qof bani aadam oo gurigiisa iska fadhiyaan oo waxba qabanayn ra'iis dawla ma tihid CIA ma tihid nin wax soo dilay ma tihid gabadh wax qabatay ma tihid marka horta waxaasoo dhan company halka Maraykan hadda leedo companiyadan sameeyay vaccineka waa private companies dawladda shaqo kuma laha ayagii baa dawladdii license u raadsanaya inay dadka siiyaan marka horta jibku ma jirto mar walba way yidhaahdaan dadkeenu waxbaan la baarayaa waan la eegayaa waan lagu jiraa dee haddaanad wax dembiya geysanin cidina xataa telefoonkan kuguma baarayso laakiin jibi ma jiro waxaas waa myth dadka lagaga baqadsiiyaa dadka lagu eryadaa marka jib ma jiro oon anagu dee hadda jibku laakiin sida u sheegta waa muno telefoonka aan sidano qof walba waxa weeyaan dee akhbaartaada halkaasay ku kooban tahay soo maaha halkaasaa lagaa ogyahay ciddii doonaysana inay adiga si gooniya kuu ogaadaan oo wax un kaaga shakiya siday kuu ogaadaan iyo siday kaaga warqabaan ma waayaan marka waa kaas daqiiqad baa lagu soo saaray hadday ku haddaba yimaadaan dadka leeda jib bay ku xidheen marka horta wax qofu jibka ugu xidhanayo lacag u gelinayo oo kuu siinayo de maxaad samaysaa maxaan qabanaase annakii waa dirqiya allah maalinteeni baan eryanaynaa right marka ilaahay baa la aaminaa dadka haddaanad wixii mid baan dadka ku taxallujin lahaa haddaanad wixii garanayn oo haddaanad wixii aqoon u lahayn horta haddaan communitygeena ku adagtay inuu yidhaahdo waxaa garan maayo ilaahay baa iga ogneh waayo haddaa qofka aad macluumaad beena u sheegtid oo qofkaas cudurka ku dhaco dhinto ma ogtay dembigiisa inuu ilaahay ku arkayo ma isqarin kartid raqiibu catiid baa ku arkaya marka wixii markay noqoto qof caafimaadkiisa Somali waxaan ku dheeraynaa shaming culture and I will leave that to you ubax because I don't know how to say it in Somali shaming culture-ka waxa waaye in oo qofka in la cambaareeyo waan is cambaareynaa waxunbaa isku cambaareynaa waxunbaa isku dadka annagoo xataa aanan ogeyn waxaan qofkii u cambaareynayno ayaan wax ku cambaareynaa yes so waa inaan qof dadka horta meel baan joogno mise hadda halkan joogno maanta halkan joogno maasha allah aqoon weynoo furan tahay Google baa jiraad wax walba ka guulgareynaysid xataa haddaanad qori karaynin afkaad uga sheegaysaa uu ku soo saaraya information markaasuu ku akhriyaya weliba so we have no excuse inaan dadka ku nano oo matalaalkaad qaadanaysaa aniga way ku dhacday aniga I'm gonna say this story for real aniga igu dhacday qof kale kama sheekeynayo patient bay la joogay patientkii ayadaa appointment ka samaysatay clinica weyn ilmaheedii yaraa bay soo kaxaysay 8 caruur ay leedahay kani waa kii ugu yaraa 8 kale waa loo tallaalay mar walba way noo imanaysay yacni waa she's one of our patient you know it's like a family صح way timi turjumaan baa loogu yeedhay maalinta turjumaanku markaa I don't know why she didn't think I'm Somali I don't know aniguna waxaan soo haystaa inaad Soomaalida That's another day topic. I am not even gonna go there. But gabadhii anigii baa markaa turjumaan baa jooga shaqadeedii bay qabsanaysaa inaan uu ka dhex galo maaha markaa ingiriisi baan ku hadlayay gabadhan u sheegayay so MMR vaccine so I was explaining to her about the MMR you know the side effects waxay qaban lahayd intay gabadhii ku jeesatay bay ku tiri oo makaasaad inankaaga siinaysaa naha siinin autism bukriday inankaaga waxba u dhimaya hadda waan fadhiya waana gabadhii turjumaanka ahayd waa gabadhii turjumaanka ahayd wow
then waan yar qaboobay horta gabadhi way naxday way soo egtay gabadhu way ogtay inaan Soomaaliyeed ahay mugti ilan hore inoogu timi clinic marka waan baxay waxa maan odhan waxaan u soo qaaday bahasha manufactureka information that come with the vaccine صح ayaan u soo qaaday macluumaadka akhbaartii oo talaalka isku saabsanaa baad u soo qaaday yes waan highlight gareeyay waxaan ku iri please take this I know your kids go to school marka carruurteeda waan aqaana jaar baaban nahay laakiin I don't have to tell this lady right that's right waan u highlight gareeyay waxaan ku iri you don't have to do it today but I need you to go and understand it more reerka carruurtaada ku akhriyaan understand it and then you can come back because waan arkay inay naxday waan arkay inay qabowday marka gabadhiiba anigii baa laygu soo bodo laygu uri it's not your job waxaa ku oranaysa gabadhii turjubaanada ahayd markaas ma Soomaaliya ku hadashay mise Ingiriis wali maan hadal de markay inka way soo doonatay Soomaaliyeedii baa soo baxday hadda way ii timibe waxay igu tiri well she told you she's not gonna have it that's not your job do your job wow very very bold I had to sit down kursigayga waan soo jeestay waxaan ku iri ma ogtay waxaad hadda gabadha ku tiri inaanay shaqadaada ahayn inaad ka xadgudubtay sharcigii ku yaalay that's right haddana waan ku dhaafay baan ku af Soomaaliga waan kaa badiyaa intaad tirina waan la socday yes inaad intaa ku tiraahdo maalan waana shaqadayda my job is to educate her yes to get the best information so she can do her own decisions that's right gabadhi dib bay u fadhiisatay kelmad kale kamay soo bixin way qabowday de Soomaali kumayan moodeynin way qabowday wallahi anigii baa ka naxay waxa u maleynaa haddaa Ingiriis kaliya ku hadli lahayd sidaa may u naxdeen ee markaad tiri de afkaaga Soomaaligii la soo baxday bay huq isku tiri subxaanallah and I came closer because waxaan istiri ha ku qaylinin because I didn't want haddana guilty baan feel garayna haddaan Soomaali nahay I did not I wanted to make her feel attacked I didn't want her to inay shaqadeeda ku lose garayso taasna waa mid weyn qofku haddaanu shaqadii kuu qabanayn it's okay qof kale kuu qabanaya shaqadii u yeedho isku haleynta intaa la-eg marka qabano dadku ma shaqeeyaan maogtay it's like you know so anyway waan usoo dhawaada waxaan ku dhaha Soomaaligana kaa badiyo horta maogtay halkaasna halka uga bilaabay wow tap your nose lady waxaa ku yidhi waxaad ku tiri imka xaqaadi wallahi way qabowday she couldn't talk for a minute anigii baa baqa markii dambe irsani kalayba Soomaali baan ahay armaabay ku gashaa maya nightmareka oo turjubaan ka baxaya laynkoodii shaqada wuu badan yahay marar badanna waan ka hadalnay waanan ka hadlaynaa marka aniga oo kale qof hadda oo 22 sano ka shaqeynayay we have Ismaaciil oo asagana si fiican arrimahaas u garanaya oo asagana ay tahay expertigiisa mar walbaan arrimahan ka hadalnaa mar walbaan aan maaragtay dadka aan rabnaa inay fahmaan qof hadduu laynkiisa shaqada ka tilaabsado shaqo kasta waa shaqo turjubaanku wuxuu leeyahay sharci xakameynaya oo celinaya oo sharcigaas uusan qofku ka tilaabsan karin hadduu ka tilaabsadana ay ku noqonayso ilaa uu shaqadiisii qofkii uu ku luusgarayn karo ama uu shaqadii lagaga ceyrin karo lagaga eryi karo waddo iyo waxaan leenahay sharciyo oo turjubaanada ku xakameynaya qofku inuu laynkiisa shaqada uusan ka tallaabin qofku fikradaada adigu uma siin kartid muxuu ahaa lama talin kartid waxaana kuu saxa iyo waxaana kuu qaldana shaqadaada ma aha turjubaanku shaqadiisa waxa weeyaan qofka hadalkuu dhaho inuu bedelo oo sheego oo sidii yahay u turjumo dhakhtarka hadalkuu sheegana uu qofkii patientka ahaa siday tahay uu ugu turjumo hal erayna kuma dari kartid hal erayna kama bixin kartid although inkastoo ay jiraan marar badan oo qofka haddii arrin ay cakiranto oo dadka expertiga ama khibradda u leh marar baa jirta aan dhihi karno koofiyaddii aniga turjumnimada baan bixinayaa si aan markaasayto wixii meeshaas isku xayirnaa oo ama qofkii iyo dhakhtarkii oo arrin isku fahmila oo culture oo kale ama wax kale ay soo dhex galaan si aa markaas aasu turjubaan fahmaya dhaqanka iyo cultureka iyo wax meesha cakiran aad tiraahid saacadan laga bilaabo turjubaan ma ihi laakiin waxaan rabaa inaan fikrad kuu sheego dhakhtarkaa u sheegaysaa qofkaa u sheegaysaa labadiiba ha ku ogaadaan waxaa ka hadlaysid laakiin marnaba
adiga oo koofiyadii turjubaannimada qaba fikrad adiga aa leedahay marna meeshaas lagama ogola mana keeni kartid mana ka hadli kartid mana la talin kartid talada waa inuu qofka weydiisto dhakhtarka I love it. I love it. And that's imika naftarkeeda we raising awareness. Dadkii waan baraynaa. Turjumaanka qofka xataa dhakhtarkaaga. yes Can you hear me? yes si fiican xataa dhakhtarkaaga haddaanad ka helin qof kugu qabsan karaa ma jiro aayaroo dhaqaaqday baad iska bedeli kartaa adaa baawarka cidi kulama laha adoo aana siin samaynin adoo aana dagaalamin adoo aana yani marmar waxay noqotaa qofku yani waan weligeena lama dhegaysanaynin marka waxay noqotaa marmar waan xanaaqa ma doonina qofkan waxaad odhan kartaa easy and simple I need a different doctor I need a different interpreter next time you call laakiin qofku haddaanu shaqada ku qaban ama caregiver ha ku ahaado ama interpreter hadduu ku ahaado ama dhakhtarkaaga ahaado ama cidi doonahaada haddaanu shaqo daacada ku qabanayn oo aanad adigu ka faa'iideen lacagtaa qofkaasi u qaadanayo you have a right easily to move on and try the next one and try the next one ama you know review baa la qora ka daba tag qofkii ku cajabiya ee aad leedahay waad fahmi kartaan qofkaasaa noloshaada wax ku soo kordhinaya because waad dhegaysanaysaa kama boodaysid ha laakiin muno anaguna toobigii iyo hadalkan ka hadlaynay arrintaas lugud bay isku leeyihiin oo marna ma islihin toobiga waa ka baxday ma aanan ka bixin laakiin waxaan rabaa also inaan ku daro dadkeenna waxaad moodaa muno in qofkii asagoo ay u jeedaan inuu laynkii shaqadiisii ka baxay oo ama uu fikrad u dhiibayo ama uu talo ku darsanayo ama uu sidii wixii la rabay ugu turjumaynin ayay inta iska aamusaan ay waxay isleeyihiin marar badanna markaan ka wada hadalnayn weydiinay sababta maxay tahay qofkaas aadan meeshaas ayada ah aadan u qabanin oo u dhihin war waa iga qaladay ama ma ku doonayo ma doonayo bay kuleeyihiin qofkaas inaan shaqadiisii u qoonsado because we are a family Soomaalidu waa dadka kaliya adoona weligood aqoonin maantaad meel sugu imanaysa waxa la moodaa dee وقاعدة هره وحلا مدد ولقي استقنن we all like a family لكن هذانا family جا نباتو ونسوق ستيبان هاي إن واحد شرت آمن درة واحد شرت حنون أنا حتى أجين يعني إن قلبي قابين ولي وعني هاي مركا وأذوق هذا أنكتلي قفك كلا وحي هاي يهلكو كيمي it's not your business رزقك إلها قري قفك رزقك إلها قري إلهي بقري هذه رزقك إلى أذوق مر والمقف بني آدم وحبق عنتكم هيسبا إلهي بقري مركا ذات إلهي آمن سنة دانا هاي وحواناك سئنا وناك وحبا لمي وبحي if I don't get along with you I will go to the next person أنا كحمين أنا كعاين وحنا يا okay it's not the same dialect that's right isku meel uma soconee aan laba wado kale aadna weeye soo maaha ayagoon lays caayin oo lays cadaabin oo lays dilin oo lays laynin taas wax badan oo inaan horta awarenessyada kusoo darin doonay ka mid tahay so that is also another thing oo insha allah waxyaaba badan markaan hadda saa ugu dhex jirnaan dhahaynaa wallahi mar dhan in laga hadlay u baahnaan lahayd marka insha allah arrimahaas mar kalaan ka hadli doona ayadana haddaan usoo noqono su-aalihii oo maaragtay inta badan waan cover garaynay hadalkii iyadoo hal su-aal laga jawaabayaa hadallo badan lagu sii darayaa lagu cover garaynayaa hal su-aal waxaa arkaysaa su-aalo kaloo soo socday in already laga jawaabay marka way noo soo fududaysay oo horta su-aalihiiba noo soo gaabisay su-aasha kaleeto oo aan de hal ama labaaba noo hartay waayo wallahi waa wada cover garaynay su-aalaha iska simple oo isku wada egagayna ahaayeen haddii aad talaalka qaadatid macnaheedama waxa waaye in aad walwal dambe kaa haray oo 100 qof oo covidka qaba xataa aad dhex tegi karto oo dhigi karto aniga waxaan ahay invisible ima qabato iguma dhici karo talaalkii baan qaatay jirkaygu wuu difaacan yahay oo waxa igu meeraysan bir baan isku soo maaragtay anigoo dhan isku wareejiyey difaacayga waa heer sare talaalkii aan qaatay soo maalin walba waxaan ag tegi karaa qof oo xanuunkii covidka ama caabuqii qaba ma sax baa taasna okay وإن سي شرحها because صحنا وتاي مناها okay for now we don't know how long are you نقولت how long بكو cover قرينيا لبا vaccine بالله the Pfizer and the Moderna Pfizer كا لبا إرباطات بعد قادني صارت وحي مفكرة لبا إرباطات
Pfizer marka loo yimaado irbadda hore markaad qaadatid markiiba waxaa lagu sameynayaa appointment ah ama ballan ah kan labaad ku qaadanaysid inta badanna waa inay 21 casho u dhexeeyaan right waa 21 the recommendation is 21 days waa 21 casho it can go up to 6 weeks but what 21 days baa lagu isku taxalajiya ina lagugu soo qabto صح inta badan Modernana waa ka hor aad qaadanaysaa waxaad haysataa window of 28 days waa 28 casho صح ta ugu horeysa lagugu mudayaa ta dambe way ka doos yar tahay way ka itaal yar tahay marka jirkaaga waa sidii waa lagu dhirbaaxay madaxaa laga yar taabtay right so the next dose after 21 days marka jirkaagii already waa la stimulate gareeyey difaacaagii waxbuu dardareemay xoogaa lasoo kakiciyey lasoo kacaleeyay then ta labaad baa la siinayaa taa marka ta labaad lagu siiyo waxaad u baahan tahay 3 week and depending on the person 3 to 4 weeks inuu jirkaaga soo kabo markaad juuca dareemaysid qarqaryada dareemaysid xanuunkana dareemaysid 3 casho maaragt waa jirkaaga difaaciisii soo kacayo imka dad yani meel fayrasyadii kale uu ka dhex baranayaa difaaciisii wuu baranayaa marka mar walba oo jirkaaga soo galo oranayaa waan ku arkay I remember you I've seen you somewhere meel baan kugu arkay marka jirkii okay marka macnaha marka muna waxaa leedahay ma aha maanta xabadii labaad haddaan qaato oo talaalkii labaad aan qaato weekendigaaneeto meel oo xaflad oo goodbye party ma aadi karo No. We think we are invisible, but you can't. And the reason why, that week, 3 weeks when you have your immune, the studies showed, because Moderna and what I published, say in December, and that study go the barashadooda cilmi baadhistoodii waxay tustay inuu qofku difaac lahaanayo the longest for 4 months laakiin waa intii ay sameeyeen marka ma aha 4 months alone but that's the best we have for now ilaa intay kuwa kale soo baxayaan imka waxay sameynayaan kolba iyar bay kusoo tuurayaan moogta صح imkana way are in February for now so you will be fully for now we know it's like 4 months laakiin imika dadka la baadhay waxa laga yaabaa bisha dambe inay yiraahdaan waa 6 bilood waa 8 bilood de flugana waxaan ka ognahay sanad walba lagu mudaa waayo virusku waa smart virusku jirkiisa maaragtay jirkaaga qoloftuu iska tuura qolof kale u qaata nacam sidii maskoo kale wuxuub dhacsadaa so intii dawadan survive garaysay next year waata la leeyahay strain cusub baa soo baxay it's revolved and it's evolved wuu isbedelayaa marka isagii oo macnaysan unbaa kusoo baxaya nooc kale marka jirkii dabadee jirkaagu u difaacaagu bartay qoloftii dabadda ayuu iska bedelaya si kale isagoo marka jirkaagu ula qabsanaya marka we don't know inaad sanad walba qaadanaysid laakiin iminka waa difaaca ugu muhiimsan aan haysano waa vaccineka and the more people get vaccinated the more immune the herd immunity herd waxa community marka dad badan iswada difaaca yeeshaan marka wada talaalaan wada difaac yeeshaan the herd immunity inta yara qaadan kari weyda ama difaaca sameyn kari weyda waa dad baa layidhi waxa jirta less than 2 to 3% dad aan weligood difaaca sameynin antibiotica aan sameynin annakaa difaaca marka dadkii inta badan hadday difaaca leeyihiin inta yara inagu dhex jirta dadka kansarka qabay aan qaadan karin dadka allergiga u qabay qaadan karin dadka difaaca jirkooda aanu sameyninba sida waxaan u sawiranayaa haddii aan nahay 5 qof oo 2 naga mida ee dallado wadato 3 kale xoogaa roobka waa ka celin karnaa annagana soo ma the way I look at it hadda adiga sidaa u sharxaysid waxaan u arkaa aniga the herd markii la dhaho 2 ama 3% oo la dhahay ama 3 qof oo immuunkooda weligood uusan helaynin difaacaas macnaha waxa waaye haddii dadka intiisi kaleeto ay iyagu ay immuunkooda dhismo then dadkaas kale waxaa difaacaya ummadii kaleeto oo ka badneyd oo ay ku heegaarsanaayeen baa difaacaysa so sida dalad 2 qof oo dalad wadata 4 qof oo dalad wadanin
dadkii qayb unbaa roobkii xoogaa ka celinaysaa baa isleeyahay marka saas oo kale idea ahaan the idea like if 3 people have the umbrella they can protect the other 2, right? So very good. It makes sense. So that's the vaccination in general. Marka dadkan waxaan u lahaa yaanu qof kuga oranin waxa sameeyo waxa ha sameynin waayo markuu qofkaagu wax noqdo dhibaatadaadun bay kugu soo horeysa qofka kale xog ma oga. Absolutely. You're not in his radar. Marka let's stop inaan dadka u noolaano nafteena u nooleeno wixii adiga ku badbaadinaya wixii caruurtaada badbaadinaya wixii adiga reerkaaga wax u soo kordhinaya falowgeeda qabo. nacam naftaada ina priority iyo reerkaaga iyo familkaaga kow ka dhigtid dadka kaleeto qof walba hadduu saas asaga naftiisa uga fakaro uu asaga isxanaaneeyo uu asaga dadka kale ka walwalin waxay oranayaan waxyaabo badan ayaa noo qabsoomaya annaga nafteena ayaa waxaan ka shaqeynaynaa sidaan mar walba ugaga hortegi lahayn dhibaatooyinka ku imaan kara caqabadaha marka waa run muno I agree with you maasha allah jazakallahu khayran adiga su'aalo ma aragtay muno aniga su'aalahayga intaasay ku egyihiin ilaa aan arko su'aal kaloo la iisoo tuuro by the way su'aalahaas waxay ahaayeen su'aalahan kasoo aruuriyey qolka whatsappka maamooyinka ayaa su'aalahaas iyo gabdhaha isoo weydiiyaan marka su'aalaha halkaasaan ka keenay we talked about how it works AIDS-ka and the efficacy Pfizer wuxuu soo sheegay wuxuu soo publish gareeyay inuu 95% efficacy inuu leeyahay marka waxa weeyaan boqolkiiba 95 dadka qaata 95 I'm trying my god don't even come for me man I am like come on hey lulwa iwaran ما شاء الله سلام boqolkiiba 95 يعني 95% من اللي ياخذون الفاكسين اوكي مركي عربي قال قاري اوكي ما شاء الله ما شاء الله عربي مركي قاري اوكي انا waxaan ducada soo badi weeyaan marka 95% and Pfizer the Pfizer 95% efficacy in سلام لولوه يقوي الدفاع او الاميون سيستم او المناعه ككلام موديرنا is 94.1 cool وسودويين هيا واتكتي I don't see you anymore you closed your camera so sorry back so يعني 1% about 0.9 about الحية so whichever you take كل دالة please go and get it if you can if not at least information it's all available هذا American the CDC have a fact sheet you can Google it and you can read it for yourself actually research left كيسة were published it's out there so all the information it's قعنتي إنك كترتها marka ma joogno waqti aan dhihi karno ma aqaan ama ma heli karo jawaabta waxaan joognaa waqti ay akhbaartu meel walba gacmaheena intaan ka raadino iyo intaan qof ka weydiino inta telefoonka wacna un bay noo jirtaa oo akhbaarihii meel walba yaalaan soo maaha hadda maasha allah so marka maanta waxaan ku fargareynaynay the myths and all the qaladka laisla dhex wareegayo wixii aan anagu maalinta dhaweyto waa anaga ballan qaadnay inaan su'aalaha la qabo markii lasoo gudbiyo aan soo jawaabi doono oon dadkana kasoo ururin doono waxaan u malaynayaa in badan oo maanta wallahi su'aalo badan aan cover gareynay thank you so much and haddana waxaan sugaynaa dadka oo noogugu jira lineka in ay hadday ayagu su'aalo qabaan na soo weydiiyaan and then this is waxa waaye hadda little more open let's give them time and take a break waxaad soo gelinaysa adiga waxbaad inoo heysay inoo soo geliy break waxaan rabay inaan yaa hadhowtina the haram police isn't a dilin bal no don't worry about haram police oh that's my favorite song this is how we're gonna take our break Soomaali weyn waa idin salaameynaa meel kastoo adduunka joogtiin dulmiga hala diido dad iyo hurdada ka kaca waa sheekada this is our break from Dadaal podcast and Integration TV we're taking a little break
dooni mayno ilaahay isku duub Soomaali naagtay joogaan yaa iskuulada meel walba inay aadaan u fududeen waddanka dhisto insha Allah waa gaari doonaa insha Allah ilaa u soo jeed inay dalkooda dayacin Soomaali qalbigooda Allah isku wanaajiyo amiin oo duceynayna aad iyo aad u mahadsantihiin welcome back now we're back from our little break waxay ahayd gelin aan doonayna inaan Soomaali meel kastoo adduunka ka joogaan ku dhiirigelino inay waddankooda jeclaadaan dadkooda jeclaadaan iyaga is jeclaadaan walaalnimada iyo wanaaga wax ka wanaagsan ma leh ilaahay qalbiga Soomaali weyn burcad Allah isku mariyo meel kastoo adduunka ka joogaan annagu mar walba waxaan niraahnaa dadka in oo la isu duceeyo way wanaagsan tahay marka waxaan noqonaynaa dad isu duceeya dad ilaahay ka barya ilaahay wuxuu yiri ibarya waan idin ajiibayaa marka ilaahay waxaan ka baryaynaa in Soomaali meel kastoo adduunka joogto uu ilaahay ka dhigo kuwo khayrka iyo wanaaga mar walba eega oo isku dulqaata dul isu yeesha isdifaaca ayagoo walaaltinimada iyo wadajirka iyo danta guud eegaya ilaahay Soomaali qalbigooda burcad Allah isku mariyo hayamuna anigu heestaasi makes me emotional I love that song to death I know and to death because it's not because of the singer it's not because but the words of the songs itself erayada يعني markuu leeyahay hooyoy markuu يعني you know like everything about it haddaad aragtid waxa ka dhacaya waddankeeni mar walba hooyin buu ifika garanaya waxa halkan ka dhacaya qurbo walba aan joogno I don't care where you are that's right ta wax bixinaysa waa hooyo ta wax difaacaysa waa hooyo ta wax korinaysa waa hooyo ta la yasaya waa hooyo ta calmaheedii la dilaya waa hooyo ta ilmaheedii la kubsanaya waa hooyo yani hooyo dooni mayno waan daalnay absolutely waan daalnay so speaking of hooyo maalin dhaweyd waxaan arkay oon daawanayay clip aan ka daawanayay online oo ku saabsanayd hal qof oo dumar ah waa Africa meel ka mid ah magaalo ka mid ah waxa ay ku jirtay nolol oo dhib badan oo ninkeeda ayay dhibaato badan kala kulantaa la yiri markaasay waxay go'aansatay in ay meel oo rural ah oo baadiye intay tagto ay magaalo ayada ay goosato I watched it and she brought all the women's village dhan ay samaysay marka waxaa la dhahaa magaaladii dumarka wax rag ah meeshaas kama taliyo waxay tiri marka
hadda waxay marayaan la yiri 100 dumara oo ayagii carruurta waxay dhaheen wiilku markuu 18 gaaro waxay ku yiraahdaan orod meeshii nimanka aad haddaadan annaga naga dambeyneynin marka dee saas haddayan doonayn dadka in la noqdo dumarka wax walba oo dhib ah oo soo gaara dadkeena dumarkeena soomaaliyeed way affect garaysaa more than anybody marka waxaan leenahay ha laysu beer jilco ha lays caawiyo ha laga fakero danta guud qof walba dan gaara hadduu fiirsado adduunku meel wax ka hagaagi lahaayeen maba jiraba marka insha allah taas halkaasaan waxaan leenahay we like the words erayada ka helnay erayaday oranaysa aad bay noo taabanayaan wayna saamaysaa haddaa hooyooyin nahay markaa dhegeysanaya wallahi it's more than words and I know Muno loves that song and that's why aan dhahay breega ku qaadanaynaa oo ama qayb kamid un waa soo dayn doonaa it's like you know waxa la yidhi al-ummu madrasatun idaa acdadtaha acdadta shacban طيب العراق nation walba hooyadu ka kaca hooyada haddaa si wacan may maqashay aamiin baa ku dhahay hooyada hadda wallahi carabi haddii la akhriyo waa dad badan ba aamiin dhahaya marka la yaabimayo hooya ilmaha yaraan guriga ku hayna inantaa yaraan guriga ku korinayno waa hooyada mustaqbalka hooyo wanaagsan unbaa shacab wanaagsan soo saarta laakiin hooyo balanbal iyo qaxis iyo dhimasho iyo geeri iyo dhibaato usoo taageen for 30 years I'm tired of listening to it I'm tired of seeing it aanan waxba ka qaban karin marka aan iscaawino hooyo yes and this let me finish hold on waxa yani annaka waa saxi baa lagu leeyahay waa health waa social dadaal waxa weeyaan wixii waxay nagu soo kordhinaya ee dumarka haweenka qoyska because hadday hooyadu caafimaad qabto carruurtii way caafimaad qabaan qoyskii wuu caafimaad qabaa you know the family is intact so annaka our focus is the whole entire unit laakiin qalbigu wacayo waa hooyada marka qalbiga hooyadan u dhisno aan iscaawinno haddaan dumarnahay aan wax su sheegno aan su naxariisanno haddaan annaku dhulka iska qaadin hooyo kabadda lagu liqayaa ee maalin walba baddu soo tafaysaa waa keeni kaliibya lagu haystay raggu daawanayaan ay qabiil soo haystaan reer waa keeni tala kufsanaya la gowracaya cadlada laga tegaya waa teeni teendhaha lagala soo baxay annakoo soo taagan waa teeni lacagta loo ururinaya ninka lacagta loo ururinaya laga soo saarayo jeelka dariiqa maraya isagoo ilmo yar kufsaday ee nin u hiilinayo waa keeni shame culture-kan aan isku wadno ayagaan saarno ninkii wax kufsada hadlaha siinina ninkii reerkiisa soo xumeeya ha guursanin tii horeba uu soo dayacee muxuu adiga ku keenaya maya waa saas wey waa saas at the end of the day waxa weeyaan you know topica ama hadalka hadda ka hadlayno it comes down and I'm trying to tie it with the conversation that we were having about COVID and coronavirus and the vaccine at the end of the day xanuunkan caabuqa markii uu dadka ku dhaco qofka ugu dhibaatada ugu weyn uu gaarsiinayo kaliya ma aha qofku ku dhacay waa familkana yaa udub dhexaad ama lafdhabar u ah waa hooyada ama qofta dumareed ee mas-uulka ka ah reerkaas markii uu ama odageedii ama wiilkeedii ama aabaheed ama adeerkeed ku dhaco qofka oo dhibka ugu badan uu soo fasaarayana waa hooyadii marka hooyadu mar walba dhib hadduu yimaado qofka ugu badan uu saameeyo waa iyada haddii ay noqoto xanuun hadday caafimaad noqoto oo aan faraxsan nahayna farxadda ugu weyn ayada weeye qofka uu maaragtay ay saameynayso marka waddankan aan hadda joogno waxay dhahaan happy maxay dhahaan happy wife happy home marka waa happy hooyo happy home weeyaan marka hooyo hadday faraxsan tahay reerkoo dhan way faraxsan yihiin hooyo murugaysan reerkoo dhan bay saameynaysaa marka mar walba waxay isugu soo biishubanaysaa hooyoy ilaahay maaragtay xaqaaga ha ku siiyo dulqaadka iyo wanaagaad mar walba muujinaysiina waan idinla ognahay ilaahayna maaragtay qalbiyadiina ha dhayo maasha allah can you share the name of the song and the ilka case weeyaan qays ilka case ilka case weeye magaca heestan waxaa la yidhahdaa hadda idin sheegayaa 1 second waxa weeyaan haddaa gelisid qayl ilka case waaba horaa ka arkaysaa yeah just measure how قيس
ilka case I think and then it's something when I don't remember the name so it's but okay yeah case marka ma yalham Allahumma amin Allahumma dalkan yaa amin iska leh baa la dhahaa Amin. dalkan yaa iska leh dalka yaa iska Ah, leh. dalkan yaa iska leh ما اللهم آمين اللهم آمين إلهه نوم قلب إلهه qalbigeena burcad sumari it doesn't matter meel aad kasoo jeedid meeshaas ka hayso laakiin dadka kale Maya, xanuunka masha ilaahay Allah. ka wada qaado. And so, Muna, how do you feel? What do you think? And can you believe 1 hour and a half I joognay halkan hadlaynay? I No, cannot. I I don't can't. believe it. I feel like I can't. It was like 30 minutes in meeshan ku wada hadlaynaad moodaa soo ma? That means yeah, but I don't. we were covering important stuff. Conversation hope aad qiimo u leh. I Masha hope Allah. inay dadku ka faa'iidaan. I Yes. really Yeah. hope that inay su'aalaha wixii dambe ay qabaan ay soo geliyaan dadku I know informationka waa loo baahan yahay qof sidaa u faahfaahiyey u jilciyey ma jiro marka jilciskaasna waatan doonaynay waan ognahay inaa informationka laga soo saari karo anyway but markuu qofkii ku sheego we saving you from going to look for it ha midda kale maalin dhaweyto qof baa wuxuu igu yiri sababta maxay tahay dadka xataa dadka qaatay talaalka oo soomaalida ay u dhigi karin annagaa qaadanay waxaan idhi anaa iska bilaabay anaa qaatay qaybtii kalaa u socdaa adna way ku yaqaaneen muna markaas waxaan ku dhahay dhaktar munana weydiiya labadiba ayada qaadatay anigu kii koowaad baan qaatay kii labaad baan hadda bishan dhammaadkeeda insha allah qaadanayaa marka waxay ahayd su-aashay qabaan haddii ay soo dad badan qaateen oo soomaaliya may dhahaan waan qaadanay maxay u way aaminsan yidhaahdaan ayagaan arkin there is a lot of nurses yes Seattle Lulwa we don't have a number but I know that we have a good like good number arkay dad la siinayo waan arkay we have social media Facebook yes lakin there is a lot of nurse practitioners midwives in Seattle who posted way soo post garayeen hablo badanoo nurse way qaateen ayagoo qaadanaya erbeedyadii yani way istusay they put their Facebook xataa rag qaadanaya they put it in the Facebook so there is a good community but haddana sidii intiina laga baahnaa we didn't show up nambaradina looga baahnaa we did not show up صح and we don't have the exact numbers because anagu ma aanan raadin ma aanan research garaynin meeqo qof oo Soomaaliya oo Mareykanka joogta ayaa qaadatay I did not research I don't know Muna have you researched that anigu ma aan research garaynin ma raadinin aniga baaridaas ma aanan soo sameynin laakiin waxaan arkay Facebook iyo social media dad badan oon anigu garanayo oo gobollo kala duwan jooga oo caafimaadka u shaqeeya oo qaatay iyo dad Washington dhexdiisa nala jooga oo qaatay intaas waan garanaya laakiin numberka ma ogi Just to that's really good. How did you feel about it? Can you share? Marka qaadatay she's from UK and then she said I took both. Mashallah, beautiful. So sida monetary nooga sheeg. But the thing is, yeah, she waqtigii oo Raxma waxay tiri waqtiga unbaa xoogaa dhib ah dadka Yurub jooga ay uga faa'iideystaan nacam podcastkeena annaga xilligan aan soo tabino just Rahma share it in your post they will see it in the morning insha Allah way daawan doonaan ha so Facebook like a Seattle community ga Soomaalidu ku badan yahay I'm sure it's not like Minnesota or Ohio but we have almost close to the 20,000 maybe more because when la soo kaya dara hadan noqono East Africans we're hitting the 40s high 40s so 40,000 so I feel good no side effects from MashaAllah beautiful Chester did you take the Pfizer or the Moderna which one you took good question adu keeba qaatay ubaxay Moderna ilaa is mar ayaa talaalka la qaadanaa ilaa iyo maxaa ka wadaa March maybe does she mean Sumaya oo ilaa imise mar maa ka wadaa imise mar meeqa jeer maa ka wadaa ha soo dheh haddaad imise jeer ka wado ha noo soo qor Sumaya
Anyway, I think I benefited of all that. Soomaaligaygina kelmado Soomaaliya maanta bartay. yes If we marka learn, waa kaa waa saas u yeah, fahmay yes yeah, baa tiri uma sumayo laba jeer. ah, laba twice jeer masha baad Allah qaadanaysaa. yeah. Pfizerka haddaa lagu siiyo 21 casha u dhexeeya, Moderna haddaa lagu siiyo 28 casha u dhexeeya. Maalintaad ka hore qaatidna baa lagu siinayaa taariikhda ama maalinta dambead kusoo noqonaysid markaasi ku qabanaya. Rabbi, at the end of this month aniga isiyan insha Allah. Yeah, so anything else you want to discuss? I think we got Our to the time end. waa 1 hour and a Ah, half waa ka dhex baxnay. It looks like inay sheekada ay intaas waqtigu ahayn. It's beautiful masha Allah alxamdulilah. Waa mahadsantihiin horta inta nagala qayb qaadatay iyo inta sheergaraynaysa iyo inta sheergaraysay fadlan si ay walaalihiin kale usii gaaraan sida aan uga hadalnay maanta su-aalaha isweydiinay dad badan baa ka faa'iidaya fadlan share the link waxaa ku sheergarayn kartiin whatsapp groupkiina waxaa ku sheergarayn kartiin social media platformada kala duwan la wadaaga insha Allah asxaabtiina kale. Lulwa said, do you think the reason behind not taking the vaccine among Somali community is the fear or lack of knowledge? Of course, that's a big part because afkooda weliba dadka waaweyn ama xataa dadka jooga halkan carruurta korsanaya they don't have time to afkii xataa ma yaqaanaan. Usually what I found out from my research a few years ago that you know in 8 in 10 women they don't even read and write in Somali itself because dadkeenu inta badan for the last 30 years qaxoonti baan kusoo kornay marka sometimes waxa yani si ay uga dhargaan information ay su'aalaha weydiiyaan without being judged and That's right. take that in Somali it's hard because qofka waxa ku maxaa su'aasha oo meed qaadan lahayd marka qofkii wuxuu diidayaa in laga daba yimaado so it's better not to know so iyadoo nacam aanan cidna cidda kaleeto aysan ku cambaaraynin ku ceebeynin ku durayn ku faquuqaynin ma qaadatay iyo ma aadan qaadan waa inaan ogaano in qof walba uu xaq u leeyahay inuu helo akhbaarta iyo macluumaadka saxda ah si uu go-aanka uu doonayo oo isaga saxda u gaaro annaga ujeedadeena ugu weyneed oo markaan ka hadlaynay part 1 iyo part 2 ba ay ahayd sidaan horena u sheegnay in aan uga dhigno dadka available ama soo diyaarino ama ay maaragtay dhagahooda ku maqlaan su-aalahay rabaanna weydiiyaan aan uga jawaabno si ay dadkii ku haystaan macluumaadka saxda ah akhbaar sax ah information the correct information so that they can make the right decision for them go-aanka ayaga iska leh su-aasha markii qofka uu jawaabta uu helo isagaa qofka go-aanka gaaraya inuu rabo inuu qaato iyo in kale macnaheena ma aha annaga qaadanee kaala qaado marnaba ma dhahayno waxaan leenahay annaga waxaan u aragnay in ay danta noogu jirto si aan nafsadeena ku difaacno si aan ubadkeena iyo gurigeena iyo ehelkeena aan uga protect gareyno uga difaacno caabuqan si aan dadka aan la shaqaynayno aan ugaga iyagana wixii aan annaga difaac ahaan iyo dadaal ahaan darteed ayaan u qaadanay qaybtii annaga aan isniri waa idin fiican tahay ay ahayd taas laakiin adiga go-aanka aad gaaraysid waa go-aan adiga kaa imaanaya wixii aad sax u aragtid ayaad samaynaysaa laakiin goormaad sax go-aan ah gaari karnaa waxaan gaari karnaa markaan macluumaadka iyo akhbaartii aan u baahannahay ka dharagsannahay oo si fiican ay nooga dhaadhacsan yihiin ayaan go-aankaas gaari karnaa marka ujeedadeena taasay ahayd inaad haysatid the right information so you can make the right decision one more thing we didn't talk about is Johnson & Johnson. Anab AJ was asking about that. So Johnson & Johnson, wali FDA, they did not approve it. They are reviewing it right now. Well, one dose, we don't know anything about the efficacy and we don't know about the dynamic, how it works. The minute they publish that, I will share it. Also, like Moderna, Pfizer, and Pfizer efficacy efficacy. What's efficacy in Somalia? Bahay. So qabo. And mar baa la liqaa hadallada mogta aniga xataa waa liqay efficacy yani shaqadiisu qabanayo 95% and the Moderna is 94% after the second dose though. Both of them after the second dose. So we have to take that information and compare it to the Johnson & Johnson if they are approved. Emergency. Had the egg, Pfizer and Moderna are not approved. That Kyarikorn FDA approved. It's emergency use approved. Yes. Wakalaba.
emergency use approved waxa weeye pandemic baan ku jirnaa dadka waa dhimanayaan in big numbers let's use it hadday qof safegarayso we are happy with it so it's not FDA approved like you said in the regular way it's an emergency use for a pandemic approved right it's the same thing Johnson doonayaan approval ka qaataan markay noo soo baldhigaan I'm hoping they're gonna do it this month because Moderna waxay soo dhigeen December, then they were available, right? After they yes were right available. away nacam ha marka Johnson waxay rajeynayaan ayagana si oo emergency ah sida oo Moderna iyo Pfizer loogu ogolaaday bay Johnson doonayaan dad badan oo ka hadlaya waan maqlay oo oranaya Johnson ayaa annaga qaadanayna markii la approve gareeyo sababta ay u dhaheen waxay ii sheegeen waxay dhaheen ma aysanba ka hadlaynin the effect iyo ka fiicantaa kamay hadlayn waxay ka hadlayeen so I can take only one talaal saasay igala hadleen dad badan oo ii sheeg waxay ku dhaheen ubaxay annaga kaasa sugaynaa waayo hal irbad bes baan qaadanayna intaan 2 jeer qaadan lahayn taasna waa caqligal laakiin go-aankaas laftigeeda qofka iska leh oo gaaraya Yeah, but is it even worth it to wait? Good question. Exposed, especially elderly, the ganguryahan, the genyahay, people are coming in, you have no control. Is it worth it? Like we don't know how it's gonna take, how long. MK approval ki be kuchiran dat ki way revise karena yan lulwa. Usually it takes months and months, but MK because of a pandemic, so the approval take few weeks, 2 to 3 weeks, sometimes 4 weeks. We harayen at the end of last month, I guess, last month. Marka, we hoping it comes, but the efficacy is lower. Why would you want to take it actually? Yeah. Irbad bad qaadanaysa ana kuwa kale ay ka sareeyaan say ku difaacayaan. Marka labada iska marka labada information ba waan soo dhigaynaa idinkayda jirtaa laakiin weli I don't have enough information. Markii nacam informationka ama akhbaarta saxda ah la helo oo ku saabsan Johnson iyo talaalkaasayto iyo markii la isbarbar dhigo talaalada kale keebuu faa'iidada uu jirka uga difaacayo xanuunkaas caabuqa keebaa fiican ah hadhow su-aasha ka imaanaysa ee noqonaysaa sida haddaba aan ka dhadhansanayo so marka ayadana taas ayadoon la helin akhbaartii oo sax ah lagama jawaabi karo so waxay imanaysaa markii la helo Johnson ay lasoo ogolaado oo la yidhaahdo okay waa la qaadan karaa then markaasa waxaa imaanaysa in la baaro effectigi mise weeyaan kuwii kaloo kale miyaa ma isku awood baa inteeba jirka difaacaysaa ma dhihi karnaa waa sida labadaanba ay almost equal iskugu dhow yihiin uu ugu dhow yahay haddii asaga hal keliya laga qaadanayo ma wixii oo dhanaa hal lagu jimciyey oo awooddii oo qofka amuu jiradu xataa jirka ka helaayo ama sidaa dareemaysid miyay kasii badan doontaa su-aalo badanaa iska imaan doona horta bal laakiin hala soo ogolaado Yep, we'll soo baldhigayna we'll come live. Yes. Aad umahadsan tahay lulwa kulligiin gabdhaheena wiilasheena inta su-aalaha weydiisay and how can we register maxay dhahday canab to get the vaccine it's not available for Seattle haddaan ka hadlayna I don't know Seattle it's 65 and older now and frontline workers which is health workers waa loo dagaalamay wali teachers and frontline grocery shop and business owners but now at 65 and older just continue and check the King County I don't know about other state I'm sorry King County miya marka xataa muno qofka oo weyn oo waayeelka ah oo 65 and older yeah 65 all of them Washington state is 65 and older mayan ama King County qofka iska diiwaan gelinaya mise dhakhtarkooda la hadli karaan an dhakhtarkooda macluumaad kale gooniya siinaya mise you have to go to King County usually Kaiser have it now every hospital have it but they make it available in King County. So you call your doctor, like the Harborview have their own clinics, right? So they can go to Harborview, UW, Swedish. It depends. But I have something here I never seen happening, but UK Chester, she got the first dose of Pfizer. Her second dose was Moderna. They were debating to do that. Yeah. Oh my goodness. I haven't seen that yet. This is new. No, annaku Maraykanka wali kuma aanan dhicin ayagu inaga horeeyaan. So this is good. They were debating about it to see if that have the same effect. She's a nurse, so they gave her the first of Pfizer. They gave her
her second dose of Moderna, and alhamdulillah, no serious side effects, just little chill. My body ache, body, that's all. So that's the same thing you had. Nice. I Yeah, love it. Thank mashallah. you. That's beautiful. Thank you for sharing with us. Aad ugu mahadsantahay inaan nala soo wadaagtay Chesto. Thank you so much. Yeah, that's good to know. I did not know that you can mix. They were thinking about it, they were talking about it, but what we have to test everything before we do it. Yeah. So I know if it happened there, annagana way nagu soo socotaa, laakiin Waa iyagu way soo nagu soo socotaa haa waa sugaynaa ya So the mix waa and arki match. doonaa Masha Allah, that is That's the breaking beautiful. news. That's really cool. Yeah, I that's love like it. something new maanta meeshan aan ku aragnay and Mhm. saasay ku fiican tahay wax markii laisla wadaago. You Yes. see? Wow, Yes. we're learning from each other. waxyaabo badan. What about you, Lulwa and Rahma? Rahma, I know she is in Scandinavian somewhere, Sweden, and I know Lulwa, she's in Canada. So Lulwa, did you get your vaccine? Yeah, but you guys are advanced, Chesto. Yeah, waa naga horreysiin ya. waxyaabahan ku dhici kari weyne baad ku dhacdeen. wax badan aan nooga horreysiin. Masha Allah, beautiful. Thank you. So I think we benefited so much. I hope ilaahay noo aqbalo horta intaa yare waxaan rajeynayaa Yeah. maasha Allah waxaan rajeynayaa wallaahi munoy in oo maanta timekan aan qaadanay oo aan saacadii bar xoogaa yar ka badan weliba a little over 1 hour and a half inkastoo marna serious aan ahayn marna xoogaa aan iska kaftamaynay laakiin wax walba oo la sameeyo waa in oo mutawasad miyaa la dhahaa carabigiyaa usoo noqonayaa I know little carabi hayey ruux ya mutawasat wax walba dhexdhexaad in laga noqdo marka dhexdhexaad meel ahaan cam istaagaynaa oon leenahay marna serious marna waa kaftami karnaa ciddiiday ma leh maasha allah and at the end waxay isugu biishabanaysaa inaan wax badan kala faa'iidnay in dad badan ay macluumaad badan ka faa'iidi doonaan waxaan isku dayaynaa inaan annagana dadka aanan u haysan accesska facebook u haysan inaan aan youtube gelin doono waxaan idin weydiisanaynaa our youtube dadaal baa la dhahaa inaad subscribe ku samaysiin oo aad dadkana la sii wadaagtiin si aan maar walba oo aan live soo galno ama aan episode sameyno waxaan samayn doonaa hadhowt waxaan also la sheergarayn doonaa oon dhigi doonaa akhbaartaas youtube-keena si aad idinkana dadka kale ula wadaagi kartiin dad badan baa haysan facebook marka saas darteeda waxaan niri youtube-na waa u dhigi doonaa soo maha muna Inshallah, one day now we will work on it, even if we put a recording of it. We're learning. We're not the expert yet, so we're learning. Inshallah. Marka Ubahay, what are we gonna do next time? Talk about that. Next episode waxaa soo diyaarinaynaa insha allah horta waxaan dhahanay next episode one Saturday skip garaynaynaa soo maha si aan uga soo shaqeyno so it's not going to be this coming Saturday but the following Saturday aan sameynaynaa next episode and it's going to be since aan coronavirus iyo covid ku bilownay hadalkii intiisa badneed oo part 1 iyo part 2 ka hadalnay this is also something oo related la ah oo arrintan lug ku leh waxaan ka hadlaynaa sida dadkii markii guryaha ay ku xirmeen oo coronavirus iyo pandemic uu guryaha nagu wada xireeyey ay u badatay xoogaa waa xasaasi laakiin waa u baahana inaan ka hadalno siday u badatay waxaan la yidhaahdo family muxuu ahaa ii sheeg muno dhibabkay isku geystaan qoyska gudihiisa hadday noqoto ilmaha iyo waaridka ama hadday noqoto husband and a wife waa garanaysaa waxaa ka hadlay muno we talked about this so marka I'm trying to word it in a way that aanan u muuqanin harsh marka waxaan rabnaa inaan ka hadalno it's regarding mental health but we don't want it inaan hadda mental health ahaan dhahno because that's going to be our part 2 but it's part of mental health also it's the isolation what's the isolation qoysaska u geeyey dhibaatada hooyooyinka iyo caruurta iyo qoysaska ku hayo and we're going to be domestic violence in a way domestic violence ama maaragtay dhibaatooyinka ka dhex dhaca qoysaska markii dadkii oo dhan hal meel lagu wada xareeyo oo ayagoo awal shaqo iyo dhibaatooyinka meelo badan ku kala maqnaan jiray dadkii hal meel isugu keeno dhaqaalihii uu xumaado oo dadkii shaqa la'aan qaarkood ku dhacdo familkii ay is arkaan qoyskii in ay ka dhalato si wanaagsan oo ay wax u kala xaliyaan ay garan waayaan inay noqoto domestic violence ama
odagii gabadhii hooyadii oo ama xaaskiisa ay dhibaato u geysto ama gabadhii laftigeedii ay noqoto midii gacan qaadka sameynaysa ee asaga dhib u geysatay labada dhinac way noqotaa it's the stress. So we need to talk about that one kala falanqeynayna, and we got some solutions and we got some stuff to do together so we can tackle this because what difficult time COVID dadkii sanad dhan buu nahaystay يعني wixii kaliya laba guri wala joogi karaa for a year marka waxay ku leedahay depression waxay ku leedahay anxiety waxay ku leedahay abuse waxay ku leedahay waxyaabo badan marka waan kala qaqaadaynaa xoogaa waa soo kala hormarinaynaa sabtidan ma ahe sabtida kale waxaan idin soo samayn doonaa link scheduleka gelinaynaa ciwaanka idin soo qoraynaa waa idinla soo wadaagaynaa si aad idinkana usii ogaatiin oo schedulekiina usii gelisiin calendarkiina usii gelisiin oo aad idinkana noo sugtiin waan idin soo diyaarinaynaa waanan ka hadli doonaa insha allah wax oo sida hadda annagoo shaa isla cabaynaa u hadlaynoo kalaan u hadlaynaaye ma aha annaga inaan leenahay waxbaan idinkaan wax gooniya idin soo diyaarinayna maaha wax aan ognahay conversationka u baahannahay wada hadalka u baahannahay inaan wada yeelano unbaan ka yeelanayna arrintaas wixii loo baahnaa inaan laga hadlo unbaan ka hadlaynaa Lulwana waxay tiri she spent 8 months during the lockdown in Kuwait, which is the Middle East. Marka she had a lot of stories to share with us, and I would love that. So I would love to hear that. Yeah. Yes. We will get in contact, Lulua, for sure. Absolutely, mashallah. That is going to be something that anago dhan aan wax badan ka faa'iidi doono waayo when we share our stories marka isla wadaagno akhbaaraadka oo weliba qofka uu dhaho ani haddaan ku iraahdo waxaas baa isoo maray then marka qof kaleeto ayaa laga yaabaa inuu yiraahdo alla anno sidaasoo kaleeto waxaa laga yaabaa qof inuu yiraahdo anaa waxaan maanta waxbaan ka bartay arrintaas qof baa kula relate garaynaya oo oranaya anigana taasoo kaleeto me too oo kale waa sheekada waa isoo martay ama walaalkay ama walaashay ama hooyaday ama habaryartay marka haddaa fiirisid sheekooyinka la wadaago ayaa wax badan lagu kala faa'iidaa Amen to that. Yes. So that's our next topic, and it's going to be, we're going to skip this coming Saturday. Taariikhda waan soo qoraynaa haddaan eegayaa calendarka. So today waxa weeyaan the 20th, and the next Saturday ma ahane the Saturday after was the 6th. March 6th. Why? So our next episode will be March 6th, and very interesting topic I saw there, inshallah. And it's not just a topic or it's so anaga, but we will have conversation. Idinkana waa idinla wadaagaynaa sida hadda maanta oo kale chat box noogu furnaa oo aan idinla interact gareynaynay oo su'aalaha halka uga qaadaynay waa wada sheekaysi anaga waa hadlaynaa waad noo jeedin idinka waxa weeyaan waxa u jeednaa idinkana qoraalkiinii saasaa marka u wada sheekaysanaynaa wada sheekaysigaasa insha allah noo socon doona haddii ilaa yidhaahdo sida keliya oo wax badan ay bulshadan ku dhalin karto waa saan oo kale in la wada hadlo la wada sheekaysto wax la wada barto wax la kala barto wax la isku faa'iideeyo marka insha allah dadaal vision iyo missionkeena weeyaan taas soo maaha muno yes dadaala wuu gaaraa aad baad umahadsantahay maasha allah thank you so much guys insha allah waa inoo mar kale iyo isu soo noqod wanaagsan thank you so much we're saying goodbye from Dadaal team Muna iyo Ubax and Dadaal podcast and Integration TV. See you March 6th. Bye bye. Thank you. Bye. Bye guys.